السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دين إسلامية أصحابتك كحرا فرحي لك وولاشين فرحي لك يوتيوب كأنك لها اللينا وفرحي لك نسكسو نقض وناكسن عاو أيان مركل هدن هرتين صوفريستي والله سيب وناكسن أيان كوكا حيسا على قياسي كرين بكوس waxaatihiin dad aad iyo aad aan jeclahay aan igu xiran marka raali kama ahayn inaan ka maqnaado laakiin ilaahay wax walba xalla xagiisa ay ka qoran yihiin marka insha Allah taala waxa idin leeyahay soo dhawaada caawa waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxaan horay idinkugu soo jeedin jiray runtii markii aan YouTube bilaabaye sheekooyin mas'ale waxa waaye adduunkan hadii la joogana waxyaalo badan oo ma aragtay iska dhaco oo saameyn ku yeesho bini'aadanka ayaa jira runtii aniga markii aad YouTube aad isticmaalaysid ama aad qof tahay social media isticmaalayo ama ku guda jiro waxaad raadisaa xog badan marka waxaan socdaba waxaan la soo kulmay xog waxaan arkay gabar Soomaaliyeed sempre waxa u moodaa dhibaatadu inay gabdhaha ku badan tahay waayo waa iska nugul yihiin mar waa hooyo ilmihii barbaarinaysa mar waa dhalaysa mar waxa waaye ayadii ku dayacan tahay marka runtii hadii aad sii guda gashid waxaad arkaysaa dhibaatada inay hooyooyin ku badan yihiin maadaama aan hooyooyin nahay sidaas darteed ayaan waxa arkay gabar Soomaaliyeed caruur haysato runtii caruurta ay haysatana ay yihiin ilaa 8 cunug ay dhashay maasha Allah ugu weyn yahay 9 jir markii hooyo 8 cunug ay haysato hadana aysan haysanin daryeel garabkeedii oo laga maqan yahay wax walbana ay ku dhici karto waxa waaye aad u xanuun badan tahay hooyadan Soomaaliyeed waxaan ku kulanay gaari aniga iyadoo oo maxay aheedo wada socono meel xoogaa Muqdisho ka baxsan oo ceelasha biyaha la dhaho markii aan ku kulanay hooyadan Soomaaliyeed run ahaantii waxay wadatay cunug yariisa oo korka u saaran cunugaas korka u saarnaa wallahi waxay tiraaday uu igu xanuunsaday 2 habeen iyo 2 maalmood maxay aheedo kama aan seexanin dhakhtar aan soo kaxeeyay odayga ilmahan dhalayna markii aan waco wuxuu leeyahay tiri shaqaan jiraa waxaan jiraa saaxiib hebel aan maanta meel u raacay meel hebel inta ka dhacday because way kacsaneed aad iyo aad u kacsaneed ilmahaygu mar walba waxay weydiiyaan tiraada aabe caaw soo hooyin miya uu imaanaya wala hadashiya mar walba aan weydiin excuse afraad saac wuxuu sheeganayaa in uu hoolo uun ku maqan yahay wax uu noogu maqan yahay uu noo soo siyaadiyana malahan hadii aan niraano waxaan u baahanahay idin ma hayo istabara ani ilmaho kala go'ay ma hayo wuxuu leeyahay waxa cunugii iga xanuunsan waa kana hadda buu haysataa isbitaalan u wada maxay aheedo hadii aan maxay hadda isbitaalan ka keenay hilmaam hadalku ma jire isbitaalan ka keenay ma xumay lambarka waa u gooyay daawooyin la igu soo qoray daawooyinkii lacagtoodii markii aan iraaday lacag daawooyinka loo baahan yahay wuxuu yiraahday ma awoodo mana hayo ilmihii ilama hayo igu soo noqon maayo gadaal maxay aheedo guriga inuu yimaado ma rabo marka caaway run ahaantii hooyooyinka Soomaaliyeed dibka haysta ayaan ka hadlayaa hal ma ahan 2 ma ahan 3 ma ahan wiil walba qurux badan oo hadda wax bartay oo noloshiisa heer ay gaartay hooyo ayaa ku soo tiir iyo tacabeeshay gabar walba sidoo kale ilaahay horta marka ugu horeyso hooyooyinkeena waxa ilaahay ka baryeena in uu hooyooyinkeena jannatul firdaws siiyo abaalkooda ma soo gudi karnee abaalkoodana ilmihiisa korsado daryeelo oo run ahaantii mararka qaar hooyada markaas ilmaha dhashay kaga naxariis badan marka dib walbo yimaado rafaad walbo yimaado wax walbo yimaado hooyada ayay ku dhaceysaa dumarka Soomaaliyeedna ani waxaan dardaaran u siin lahay waa jirtaa oday xumaaday hadii ilaahay calafkaada ka dhigay oo xumaaday oo sadariyal aad ku haysanin iskaga tasho ilmahaada sida aad ku aad maxay aheedo aad ku sasabi kartid ku sasabo raadii hooyada shalay way kacsaneed oo waxay tiri baadi gooban ku jira yaad baadi goobaysa asagii aan baadi gooba
haddaan aragno ili aragtiyaa naga dhexeyso, haddaan is aragno bis waayo. anigu marka talaan siiyo waxay yidhi waxba ha dagaalamin, because inaad dagaalantaa dantaada ma ahan, dagaalna waxba kuu tari maayo. waxaad sameysaa kaliya ilmahaada iska korso, irsaaqada ilaahayaa bixiyo, wuxuu idin keeno oo markaas uu idin soo tuuro arag, xageed ku maqan tahay xageed ka timaada midna ha oranin. marka wallaahi hooyooyinka way dhibaato badan ay haysato. ragga Soomaaliyeed ani waxaan dhihi lahay because shalay iyadoo caafimaad qabto dhexdeedu yar tahay maxay aheedo qurux badan guriga hooyadeed kasoo kaxaysatay ma ahan markii aad inta ilmo kuu dhashay iyadoo gabar yar 9 cunug ka dhashay ama 8 cunug aad ka danaysato oo aad raadisay mid kale oo yacni buuq iyo qeyle iyo isturbo agtooda oolino, yacni guri yar oo lagu carfiyo uun si catar iyo adduunta lagu soo shubay raashin yar oo macaan maxay aheedo lagu keenay aad fiiri aad yacni uga tagto 9 caruur aheed ayada uga tagto adigana aad nolosha noocaas aad ka doorato. wuxuu yiri aan ka ilmaamay aniga wuxuu yiri buuqayna ma rabo uma dul qaadan kara qeyladiina adiga iyo caruurta xunka waa dhashay, because waxaan haystaa guri yacni aan raadsanaya aan guursanaya waa haystaa ma dhahaye xagee aadiga qaraac ay keenta aan kaga soo nasto magaalada saaxiibkayaan aaday meel heblayaan aaday. haddii aad qeylada iyo xageed aad iyo hadallada noocaas aad iga yaree weysana waxaan sameynayaa uu yiri waxaan awood u leeyahay inaan guursado waliba midaan igu qeylineynin isturbo iyo buuq agoolin gurigiyo nadiifa gogol nadiifa meel walbo yacni carfayso aan u tagaayo, laakiin sanaag 9 caruur ka daba jiitamayaan iyo isturbadeeda bataata ma aragayga ku diimaysaa. xaq miyay u yeelatay inuu dhaw maya uma aysan yeelan xaq. waa hooyo Soomaaliyeed waxay doonaysaa in ay maxay aheedo ay nolol wanaagsan hesho. ninkan waxay u guursatana waxay aheed bari inay ilmaheeda yacni ilmo u dhasho, ilmaha markay u dhashana oo la korsado nolol fiican ay hesho. gabar walbo Soomaaliyeed markay guursanayso waxay istiraada isbedel ayaad helaysaa, because qofku jecel aad guursanay noloshaada waxaad ku dhameysanaysaa maxay aheedo jacayl iyo rabitaan iyo adigoo ilmihii lagu korsanayo, laakiin abaalkoodii maxaad ka dhigteen in aad maxay aheedo aad xumeysaan oo aad maxay aheedaan daryeel aan la helin wixii la doonana loogula dhaqmo. marka ani waxaan dhihi lahay inta xun la hadlayaa inta fiican ha iga raali ahaato, because xanaaq ay ugu jiro. waxaan kamid ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ilmaha dhalay dhibka ayada haystana waan dareemayaa runtii waxa weeye aad iyo aad ay gubaysaa. marka haddii aan istiraadeen qof hadalkayga uu ka xumaado waxaan leeyahay iga raali ahaada, waad ka xumaan kartaan laakiinse waxaan leeyahay iga raali ahaada, ma ahayn wax aan la qasdiyay. ragga Soomaaliyeedna sidaan ha isku dhaamaan. dumarkii Soomaaliyeed waxaad nacsiiseen guurkii heer ay maxay aheedo ma guursane ma nin Soomaaliyan guursanaya sa aragto ugalaya taas heblaayo ma garanay intaas cunuga ka dib jiitamayso intaas cunuga ka dib jiitamayso. marka ninka Soomaaliga ma xumo laakiin midka xuno waxaan ku dhihi lahay iswanaaji. marka iswanaaji ayaan ku dhihi lahay. qisadaas waa qiso aan shalay la kulmay asxaabteeda qaaligaana inaan la wadaagaan rabay. haddaba gabadhaas 9 caruurta dhashay ninka uu saas u yeelay maxaad kula talin lahaydeen? horta ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu ilaahay ninkeeda u soo jeediyo.